السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. saacadu markay ahayd 12 daqiiqo fiidnimo ayaa loo ogolaaday in uu u diro eheladiisa fariin isagoo wargeliyay in aroortii lagu fulinayo dilka. sidaa darteeda Saddam Hussein waxa uu la hadlay gabadhiisa Raqat. waxa uu ku yiri: "Aabe, haddii aad awoodi weysaan in aad igu aastaan magaalada Ramadi, igu aasa magaalada Cooja." gabadhiisa Raqat waxay la xiriirtay odayaashii iyo qabaa'ilkii ay ka dhalatay. waxay ku wargelisay in aabaheed uu ka codsaday in lagu duugo Cooja, waayo waxa uu ka cabsi qabay in meedkiisa Shiicada jidka ay u galaan, kadibna sidaasi ay ugu geystaan xadgudub ka dhan ah meedkiisa. qabaa'ilka way ka shireen arrinkii, muran iyo isqabqabsi badan kadib, qolo kasta oo doonaysay in magaaladeeda lagu aaso madaxweyne Saddam Hussein sida reer Fallujah, reer Ramadi, reer Cooja iyo reer Salaaxudiin iyo reer Tikrit. markii dambe waxaa la isku afgartay in lagu aaso madaxweyne Saddam Hussein Cooja oo ah degmo ka tirsan Tikrit, taasi oo ku dhashtay madaxweyne Saddam Hussein, hooyadiisa iyo aabihiisna ay ku aasan yihiin. intaan hawsha la galin waxaa soo hadlay madaxweynihii dalka Yemen Cali Cabdallah Saalax, isagoo ka codsaday eheladii iyo gabadhii Saddam Hussein in lagu duugo meedka Saddam Hussein dalka Yemen si ku meel gaar ah inta Ciraaq ay ka xasilayso nabadgelyadeeda. diyaaradii soo qaadi lahaydna wuxuu yiri waa diyaar, balse waxaa diiday arrinkaasi Mareykanka wuxuu diidnaa Saddam Hussein inuu qiimo yeesho dunida geeridiisa kadib, waayo waxay ogaayeen haddii Yemen la geeyo meedkiisa caalamka carabta oo dhan waxaa ka dhacaya tacsi wufuud balaaran oo daafaha dunida ka kala socda ayna ka qayb gali doonaan aaska madaxweyne Saddam Hussein. Mareykanka waxay ku dadaaleen in aysan dhicin arrintan amaba aan loo sameeynin tacsi ama janaazo. waxay go'aan ku gaareen maamulkii Mareykanka ee uu hogaaminayay odaygii habaarqabaha ay Bakhtiga Bush ee gacanta ku hayay arrinkii dilka iyo aaska madaxweyne Saddam Hussein in loo aaso meedkii Saddam Hussein sida qof aan wax qiimo lahayn. waxay amar ku bixiyeen Mareykanka in si degdeg ah loo dhaqo loona kafano oo degdeg loo aaso dadka meesha imaanaya in aysan ka badanin 3 qof. laakiin odayaashii meedka loo dhiibay ee dhaqaayay meedkii Saddam Hussein waxay cadeeyeen in jirkiisa ay ku arkeen raad jirdil ah, kaasi oo jirkiisa oo dhan ku baahsanaa toorey in ay ku taalay, iyo waxay sheegeen inuu qoorta ka jabsanaa iyo qaybo ka mid ah madaxiisa. kuwa kale waxay sheegeen iyagoo qarinaya magacooda oo goobjoogyaal ahaa xilligii dilka lagu fulinayay madaxweyne Saddam Hussein in xariga qoorta loo dheereeyay si olakac ah, kadibna madaxweynuhu uu ugu dhacay dhulka si toos ah, sidaasina lagu dilay sidii feer iyo xaraanti loogu waday iyo burus intuu ka nafbaxayay ee uusan u dhimanin xarigii qoorta loo geliyay ee dadka la tusiyay. in yar ka hor inta aan la daldalin madaxweyne Saddam Hussein wuxuu bilaabay inuu akhriyo shahaadada qiritaanka islaamka: "waxaan qirayaa in Allah xaq lagu caabudo uusan jirin Allah weyn mooyee Muhammad." laakiin waxaa la daldalay isagoo dhamaysanin ereyadii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hadaladii taariikhda u galay ee madaxweyne Saddam Hussein waxaa ka mid ahaa: naclata ku dhacdo Bush iyo bareyska Israa'iil. waan ogahay maxkamadda inay kor joogto ka yihiin, laakiin maalin waxaa dhacaysa aad ka shalaayi doontaan. kitaabka gacanta igu jiro ayaan aaminsanahay, weligeyna aaminsanaa. wax geeri ah kama baqaayo, laakiin Ciraaq waxaad gacanta u geliseen Yahuuda iyo kufaarta. carab oo dhan waa gumaystayaal kor laga haysto. arag Sacuudiga, arag Imaaraadka, arag Kuwait iyo maanta Ciraaq. waxaan ka xumahay anigoo arkaya dalkayga in lagu soo duulay in dadkayga ay gacmaha iga xireen. dhegeysta shacabka islaamkow, marnabaha ogolaalina in dalkiina ay soo farageliyaan Yahuuda iyo reer galbeedka. maxkamadda markii ay ku dhawaaqday in ugu dambeyn la daldalayo madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein, isagoo qiiraysan ayuu yiri: "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ciraaq way jiraysaa. Saddam geeri kama baqaayo. gaalo ayaad u shaqaysaan oo dalkiina aad gacanta u geliseen. Allahu akbar. allihii abuuray ayaan dib ugu noqonayaa. naclad ha ku dhacdo Mareykanka iyo wixii taageersan." kusoo dhawaada barnaamijkeena ma ogtahay ee maanta. barnaamijkeena ma ogtahay maanta waxaan ku soo qaadanaynaa fariinta ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan. wuxuu yiri isagoo difaacaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam: "waa inaad fahantaan nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoogu yaalaa qalbiyadeena. in nabiga la aflagaadeeyo waxay xanuun ku tahay dareemaheena iyo maskaxdeena iyo quluubteena. jaahilnimo ka weyn ma jirto qof aflagaadeynaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. tani waa musiibo adduunyo. ha ogaadaan dadka aan haysan diinta islaamka aflagaadada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam in ay tahay dhammaadka dunida oo kale." halkaasi ayuu ku egyahay muuqaalkeena ma ogtahay ee maanta.